بسم الله. السلام الله عليكم. سوري wada asxaabta qaaliga ah waa Xaydar. Dabcan waxaan rabaa halkan inaan kusoo gudbiyo faaqayntii isbuuca lacagaha aan rabo isbuucan category dabcan lacag hore way jiraan isbuuci hore furnaa dabcan amaanka sugino ay kamid yihiin saddexdii lacagood aan isbuuci hore qaadanay oo ah NZD CHF, Euro NCD iyo AUD CHF. Waxaan rabnaa insha Allah lacag kale inaan insha Allah isbuucan sii gaadno. haddaan aan ka bilaabo lacagtan DXY da dabcan rabin ahaan badiyo lacagtan DXY da waxaan ka sugayn xallo jawaab dabcan saashin isbuuc dhaweydba in hadda Steve Flax samaynayso dabcan retest ku samayso waxaan dhaho structure-kii guud structure-kii waxaan leeyahay yaraa ee lagu soo kala celiyey dabcan kadibna all the way lacagtaasi ay sii daynayso waxaan ka sugaynaa marka lacagaha USD da ay ku jirto waxaan ka sugaynaa waxaan dhaho dhaqaaq baan ka sugaynaa kuwaas dhaqaaqaas oo ah dhaqaaq sela ama dhaqaaq buy waa kala garanaysa dabcan oo DXY way xukuntaa lacagaha dhan dabcan waa ujeedaan caadi ahaanta waxaan dhihi karnaa double bottom hoose joogtaa dabcan laba taabasho plus double bottom hoose all the way way sii dan karaysaa dabcan ilaa ay tagayso targetka ama waxay soo dayn karaysaa dabcan inay soo socoto dabcan halkan ay timaado dabcan all the way kadibna ay laabato iyadana insha Allah ka faa'iidaysta dabcan lacag haba waye Euro USD haddaan tago iyadana aan ku xijiyo Euro USD iyadana halkeeda dabcan Euro USD iyadana maxaa kaaga muuqda jiha sela kaaga muuqata maxaa dhacay retrace ku samaysay structure-kii xaggan ahaa dabcan maxaa laga sugayaa all the way inay soo dhacdo iyadana soo dhacdo ilaa xaggee ilaa targetka ay timaado dabcan qaabkii ku timaado waxaasna insha Allah aan eegno iyadana waxaa jiibay madagtid ifan xitaa haddaad dhigtay halkan oo kale structure ku jira dabcan waxaad u banaynaysaa inay yihiin qaab dhismeed same ah dabcan advance structure-kii aad samaysay dabcan iyo structure-ka waxaad u malaynaysaa structure same okay sidoo kale lacagaha US to u dhamayso waxaa laga sugaya xaloo jihada silka because lacagta DX ta laga sugaya jihada ama dollarka waxaa laga sugaya jihada bayga dabcan sidoo kale AUD USD iyadana jiha selan ka sugayna dabcan iyadana qaabkaasay samaysay iyadana waxaa laga sugayaa inay all the way ay lacagtani soo dhaqaaqdo xaggii timaada ay dhexlakan insha Allah qaabkii meesha ku timaadana arag yani short sell-kana insha Allah ka faa'iidayso qaabkii meesha ku timaadana insha Allah aragta qaab correction ku timaado means waxa weeye lacagtaasi way laaban karaysaa waayo lacagtan overall-keedu waa lacag up dabcan okay sidoo kale lacagaha kale aan sugaya waxaa kamid ah lacagtan ay dhahaan GBP NCD iyadana waxaan ka sugayaa JSR waayo lacagaha JBP da haddaan eegno mataafka dabcan waxay noo sheegayaan jiha sela waadixa dabcan haddaan tago mataafka dabcan kani waa mataafka dabcan sidoo kale saad ujeedid dabcan haddaad tagno weekly time frame-ka waxaad ujeedaa structure-ku inuu saxan yahay saddex taabasho ay samaysay even haddaad ka eegtid waxa waaye double top aad dhihi karaysaa double top ay joogtaa qaab correction ayna ku tagtay dabcan forward time frame-ka haddaad tagno waadix lacagtan waxaa ku cad inay halka ka samayso wax loo laba taabasho plus double top sidoo kale halkan oo kale oo main time frame-kan ay ka joogto double top dabcan waxaa laga sugayaa insha Allah lacagtan in level-kan xaggan ay soo qaado kadibna all the way trace dambe oo flag inaad ka eegtid meeshan kadibna all the way aad kasoo raacdid lacagtaas jiha sela u soo qaaday so lacagaha JBP du u horeyso dhan means waa jiha sela dabcan haddaan dib ugu laabto lacagta iyadana JBP NZD iyadana waxaan ka sugaynaa jiha sela waayo structure ay samaysay dabcan haddaad ujeedid yani waxay qaaday double top-kii laba taabasho plus double top qaaday kadibna all the way waxaa laga sugayaa inay all the way lacagtan ay soo hoobato ilaa xaggee ilaa ay timaado wax laho targetka wada noqdo xarakan targetka ugu dambeeyana u noqdo halkaas insha Allah iyadana ka faa'iidaysta lacagta ku xigtaan u gudbo lacagaha kaaga horeyso dabcan iyadana jiha sela laga sugayaa inay halkaa correction ku tagto dabcan haddaan eegno mataafka dabcan mataafka waad ujeedaan in halkan ay ka samayso wax laho double bottom hoose plus laba taabasho yani pattern structure expanding ay ku jirto hadeerna ay ku jirto wax laho pattern dabcan continuation dabcan loo sii wadi karayo ilaa xaggee ilaa jihada xagga qaabka ku tagtaan eegno kadibna all the way aan lacagtan jihada sela uga soo faa'iidaysan iyadana qaab noocaas oo kale ah waad ka faa'iidaysan karaysaa dabcan dhaqaaqa ay dhaqaaqayso hadda haddaad eegtid wax loo maxaa lahaa chartiga CAD JPY
means waa ka faa'iidaysan karaysaa hada structure ku jirto dabcan continuation-ka adigoo side uga taxadaraya targetka uu noqonayo waxa dhaho double two-kaas because waxaa laga yaabaa double two-kaas qaabka hadda forecasting ku sameeyay inay ku tagto waxa dhaho qaab correction dabcan keeping all the way lasoo kala celiyo macquul inay halkaa tagto macquul trailing kaa tagto another structure kala samayso idan insha allah jiha sila waadixa ka sugan dabcan anu gudbo lacagta xigta waa JBP JPY dabcan JPY dabcan waxaad u malaysaa lacagtan inay jiha sila tahay waayo inay soo dhacayso all the way ilaa xagee ilaa kan dabcan kan all the way soo dhacayso macquul hadda inay halkan dabcan halka correction qaab noocan ku samayso laabato another correction meesha ku samayso kadibna all the way lacagtan ay soo daadato halkaa structure ka samayso idan macquul lacagtan wax kasii wax loo jiha sila waayo hada degto wax laho ay samaysay saddex taabasho kadibna all the way dhulkay soo gashay macquul waxa lagu samaynayo wax laho structure kan meesha ku jira dabcan idana waxaan rajeynayaa insha allah inay jihada sirkaas oo aad waayo saa horey ku sheegay lacagta JBP da waxay tahay lacag sila so waxaad ujeedaa structure kan inuu yahay structure waxaa laga rabay lacagtan inay halkan qaab correction qaab noocan ku timaado kadibna all the way soo dhacday laga rabay laakiin maxaa dhacay all the way structure-kii bay pattern-kii bay dhexdiisa gashay half of pattern baa laga soo celiyay kadibna all the way sida looga soo diray iyadana isha in lagu hayo rabtaa dabcan oo laga taxadaro iyadana sidoo kale mataafka wuxuu noo sheegaya clear structure noo sheegaya lacagtaas inay sell soo aadi doonto insha allah aan u gudbo lacagta xigta dabcan lacagta xigta waa NZD USD iyadana waxaan kasoo yahay jihada selka waayo double two ay joogtaa mini double two structure ay ku tagtay aad aragtid 1 hour time frame-ka waxaa laga sugayaa in ay structure-kaas ay dhamaysto kadibna all the way soo daadato ilaa laga sugayo wax loo training-kan ama target-ka marka hoose iyadana insha allah ka faa'iidaysta dabcan lacagtan hadda intii xitaa waa waxay bixisay soo joogshada dadka galay isbuucii dhaweyd iyadana waxaa laga yaabaa in ay all the way sii daadato lacagtan iyadana insha allah ka faa'iidaysta lacagahan waa lacagihii aan ku jiray isbuucii dhaweyd dabcan video kore kaga hadlay dabcan kuwan waxaan kasoo yahay loo entry inay siiyaan insha allah waxaan rajeynayaa in aad lacagahan sidii isbuucii dhaweyd aad manage garayn doontaan oo dabcan aad riskiga iska ilaalin doontaan iyadana waa wax loo baahan yahay dabcan waa inoo insha allah isbuuca dhamaadka isbuuca iyo weliba lacagahan qaabka u dhaqaaqan iyo waxaas insha allah update-kana insha allah waxaynu soo siin doonaa insha allah arbacada insha allah wixii lacagaha oo dhaqaaqay iyo weliba wixii dhaqaaqi doona half yacni week-ga dabcan waa inuu insha allah arbacada soo socota insha allah iyo weliba market review